magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel deertan ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maalintii lamaad ku wadantii ku qabsanta doorashada xildhibaano golo shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shalay ayaa guddiga hirgelinta doorashooyinka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed bilaabay gowrowga doorashada xildhibaano golo shacabka iyadoo 8 kursi shalay la ka dooraday Baydhabo ee ku guuleysadeen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Abdiraxmaan wasiirkii hore ee ganacsiga Aadan Maxamed Nuur Saransoor iyo wasiirkii hore tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziyo Maxamed Sheekh ee kuraasta 4 kursi ee guddiga hirgelinta doorashooyinka iyo shaaciyeen ee doorashada oo kala kuwadanta ku qabsanta magaalada Baydhabo ee gobolka Bay tirsigoon u saeeyay ilaa iyo 4 tirsi iyo mayba tirsigan ku horeeyay ee geeka ku qabsoomahay magaalada Baydhabo seeya boqoliyo sida hanaason u sekretartama doonan Maxamed Ali Xasan wasiirka howlaha guud iyo guryeynta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo waliba Muqtaar Ali Aadan ya ka tartama doona kursiga tirsiga u saeeyay hob boqoliyo sida aasaaso kale kursiga lamaad hob boqoliyo 9 may ka tartama doonaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe gudoomiyihii hore ee baarlamaanka iyo waliba Xasan Ali Maxamed ya ka tartama doonaan kursiga aasaaso kale kursiga saddexaad may ka tartama doonaan tirsiga u saeeyay hob eber afartiko Nuura Mustafa Muqtaar iyo waliba Muna Aadan Maxamed ya ka tartama doona kursigan damboy ee ku wadantii doorashadiisa ku qabsanta magaalada Baydhabo geeka ma ka tartama doonana tirsigeena u saeeyay hob eber afarti ilama Cabdirasaaq Haaji Cabdi iyo Maxamed Ali Cabdi ee guddiga hirgelinta doorashooyinka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ya maalintii lamaad marahay gowrowga doorashada xildhibaano golo shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo hoolku uma kasugna ee howlka golo baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo kasugnin ergooyinkii doorada lahaay sharaxa xildhibaan iyo geeka ka tartama doona kursiga hob boqoliyo Maxamed Ali Xasan iyo waliba Muqtaar yaa kursigan ku horeeyay ee geeka doorashadiisa ku qabsoomo doonta magaalada Baydhabo ee gobolka Bay saakay oo taariikhdu ay tahay 28 bisha November 2021 waxaa noo socota hawshii doorashada golaha shacabka kuraasta taala qayb ahaan magaalada Baydhabo runtii maanta waxaa doorashadooda la qaban doonaa 4 kursi oo ka mid ah 11 kursi ee maalin dhaweyd aan shaacinay kursiga ugu horeeyana uu yahay kursiga tirsigiisu uu yahay 103 waxaa sidoo kale isla maanta la dooran doonaa kuraasta nambaradooda ay kala yihiin 189 41 iyo 42 doorashada si hufan ay ku socotaa absoomo socodka howlaha doorashada guud iyo amnigu waa okay insha Allah waxaan rajeynayaa in si nabad ah noogu dhamaato guud ahaan doorashada qaasatan mid maanta aad u mahadsantihiin guddiga hirgelinta doorashooyinka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay intii iyo dardar galiyay doonaan dhamaystirka doorashada xildhibaano golo shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 4 sano ha socod iyo ka mid ah doonaan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed baarlamaanka federaalka